Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelka Somali Share Education Network fadlan haddaad tahay qof nagu cusub subscribe taada nagu caawi sidoo kale gambalelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo dhigayno videogan waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad uga laaban lahayd WhatsApp group laga saaray ama laga remove gareeyay طبعا videogan ku horeeyay waxaan ku qaadanay qaabkan u manage gareyn lahayn WhatsApp group kadibna waxaan sameynay in labadaas link aan ugu talgalnay inay dadka ay ku soo biraan sidoo kale waxaan sameynay in aan qof aan ka saarno marka waxaan rabnaa qofkaas aan ka saarnay inaan groupka oo ku soo labto asigoo isticmaalaya linkiga marka in saan hore u aragnay labadan linkiga in midka ugu horeeyo waa midkii aan jibinay midka labaadna waa midka saxda ah aan ugu talagalnay dadka inay ku soo biraan marka haddeertaan maadaama aniga ahaan groupka aan nalaga saaray in labada linki sidoo nagu shaqeynaya hal mar aan baroweyno linkiga koowaad waa kii aan jibinay haddii aan kala garayno ama qof alaal qofkii kala gareeyay wuxuu leeyahay in groupka linkiga haddeertaan aad in reexday waa linki in la jibiyay ama la burburiyay ama waqtigiisa dhacay ama waa linki la xanibay ma aha linki qof ku soo biiri kara groupka okay in linkiga hoosena waa midka saxda ahaa balse wuxuu leeyahay in linkiga haddeertan aan reexday groupkaas hore ayaa laga soo saaray marka awood kuma lihid inaad ku laabatid maadaama qofka groupka laga saaro haddoo linkiga haysta xataa marka waxaa nooga cad inuusan ku soo laaban karin balse haddeertan haddii aan groupkan lift aan ka qaadan lahayn oo nalaga remove gareyn lahayn oo linkigaas reexno automatically waan ku laaban karnaa balse maanta waxaan rabnaa in aan ku laabano group nalaga saaray so si aan ugu laabano waxaan sameynaynaa inaan numberka WhatsAppka aan ku isticmaalayna aan bedelno so si aad u bedeshidna waxaa u baahan tahay inaad haysatid number ama laf ama sim card dheeri ah oo hore aadan ugu isticmaalin ama aan dhahno in sim card oo haddeertaan waqti xaadirkan aadan WhatsAppka ku isticmaalinin inaad haysatid ayaa muhiim ah haddeertaan marka number ayaan soo diyaariyay marka waxaan tagaynaa qaybta setting markaa tagno kadib account ayaan aadaynaa account markaa tagtid kadib waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay change number markaa dhahdid next iska dheh numberka aad ku isticmaalaysid waqti xaadirkaas ayaa kore ku qoraysaa sidoo kale qaybta hoosna waxaa ku qoraysaa numberka aad rabtid inaad u wareegatid so numberkan aan ku qorno okay in numberkii cusubaa marka hoos aad ku qoratid waxaad leedahay next ayaa leedahay sidoo kale dan ayaan leenahay dan markaan dhahno okay dan markaa dhahdid waxaad sugaysaa ilaa ay fariin kaaga imaanayso numberka cusub ayaa waxaa loo diri doonaa fariintaas oo numberka WhatsAppka lagu confirm gareynayo oo noo soo dhacay marka waxaan leenahay 10 110 478 kadib waxaad sugaysaa ilaa oo ka active gareysmaya haddeertaan saa arkaysid waxaad ku guuleysatay inaad numberkaaga iska bedeshid in sidoo kale wuxuu noo soo bandhigay in warbixin oo noo sheegayo in aan ku guuleysanay okay ayaan leenahay marka waxaan rabaa inaan ku laabto groupkiina laga saaray soo si aan ugu laabano mar labaad groupkii ayaa tagaysaa kadib waxaad riixaysaa linkigii loogu talagalay inaad groupka ugu soo biirtid soo haddeertan haddii aan click garayno wuxuu leeyahay waa ku soo biiri kartaa dadka groupka ku jiro ayaa noo soo bandhigay marka waxaan leenahay join markaa dhaadid si fudud waxaa ka mid noqotay dadka groupka ka tirsan so isla markii mar alla markii aad groupkan aad ku laabatid waxaa laga rabaa inaad sameysid numberkaaga iska soo cesho waayo in hadda haddii aan numberkeena soo celin oo numberka kale oo hadda aan u bedelni laga remove gareeyo waxaa dhici karto inay kugu adkaato mar labaad inaad ku laabatid marka mar alla markii aad ujeedka aad lahayd aad ka gaartid waxaa fiican numberkaaga inaad iskaga soo laabatid so haddeertaan numberka aan ka dhignay inta aan ku qorno in 22 4 9 3 6 numberkii hore aan halkan aan gelino in 626 kadib next ayaan leenahay next markaan dan ayaan leedahay waxaad sugaysaa in numberkan haddeertaan aan ka dhignay asagana code ayaa usoo dhici doono marka codekaas ayaan waxaan sugaynaa codeka waana soo dhacay 579
Okay, in groupkii waan ku biirnay, nambarkeena waan soo ceshanay. Hadda haddii aan groupka aan ku laabano, waxaad arkaysaa groupkaas aad member ka tahay. In groupka aan tagno, saad arkaysid wuxuu leeyahay groupka waxaad ka tahay member. Haddii aan fiirino halkan aan riixno, waxaan arkaynaa groupkiina laga saaray, aan ku soo laabanay. So haddeertan waxaa u leedahay groupka inaad ka hadashid, in memberna ayaa ka tahay, si fudud ayaa ku soo laabatay. In videogan waxaan ugu talagalay kaliya in aqoon kororsi ahaan ayaan ugu talagalay, ugumana talagalin inaad dadka lagu dhibo oo had iyo jeer group laga saaray aad iskaga laabatid. In sidoo kale asxaabta groupka len waxaan kula tali lahaa in groupka qofka haddii oo linki oo sameeyo waxaa fiican in oo linkigaas jibiyo, waayo waxaa dhacayso in groupkaas xataa qof aad ka saarta taa mar labaad inuu kusoo laabto. Marka waxaan idin leeyahay group haddaa sameyseen, groupkaasna linki aa u sameysay, linkigaasna ujeedka aleed aa ka gaartay, iska jibi. Haddii aad u baahan tahay linkin kale inaad sameysidna awood ayaa u leedahay. In qasab ma ahan halkii linki aan sameysay forever inuu open ku ahaado. Mideeda kale dadka waxaan leeyahay groupka cilad la'aan lagama saarin. Group haddii laga saaro fadlan dadka ha ku dhibin, groupka ha kula laabanin. Waa cashar kaliya aan ugu talagalay in laga faa'iideysto oo kaliya aad ku ogaatid in aad ku laaban kartid group laga saaray. Videogeena halkan ayuu ku eg yahay, waana ku mahadsantahay daawashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.